أنا وحكسو برتوش يقال إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas in badan oo inaga mid ah waxaynu ku mashquulnay xisaabinta iyo ka hadalka natiijadii liidatay ee ardaydii ku dhacday imtixaankii dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse qisada wiilkan yar ayaa noqonaysa mid taabanaysa qalbiga qof walba su'aasha milyanka dollarku kacaysa ayaa waxa ay tahay sidee ay ku dhacdeen xilligan wiil xoolo raaca ah lana daalaa-dhacaya duruufaha nolosha uu kaalimaha ugu sarreeya ka soo galay imtixaanka shahaadiga ah ee dhammaan ardayda Soomaaliyeed waa samaxay fariinta uu diray wiilkan fariidka ah ee leh rajada iyo mustaqbalka ifaya inta aanan sheekadiisa gudagelin waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si fariinta wiilkan ay qof walba u gaarto una sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale qisooyinka guulaha ee nolosha marka loo eego halka ugu sarreysa ma saarna kuwa nolosha ku raaxaystay taagsigeeda waa inaad ka soo gudubto marxaladaha adag si aad u guulaysato wiilka qisadan ay taabanayso waa Qaasim Salaad Gabood waxa uu ku nool yahay Garbaharre waa mid ka mid ah ardaydii uu cadaraha dhigtay ee ka soo jeeda Garbaharre kuna noolaa Kaamyar oo qiyaas ahaan magaalada u jira 1 kiiloomitir iyo bar sida aan ka soo xigtay muuqaal baahiyaha Shabeelle TV wiilkan wuxuu ka soo jeedaa qoys danyar ah waxaana habeenkii uu dhaxsadaa hoygan cooshadaha ka samaysan si maalinle ah waxa uu la dagaalamaa duruufaha nolosha xilli uu maalinka barkiis ariga raaco qaybta kalena waxbarashada aado balse nasiib wanaag waa uu guulaystay waxaana uu qayb ka yahay 100 arday ugu wanaagsan guud ahaan Soomaaliya marka loo fiiriyo ardayda asaagiisa ah ee ka qayb galay imtixaankii dugsiyada sare ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir أنا وحكسو برتوش يقال إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas anigoo saas daajo aan ku soo bartay dhibkaan iyo intaan daruuri aan ku soo bartay aniga ahaan uma baahnin inaan maanta ka hadlo kuwii la sheegay inay imtixaanka ku dhaceen sabab walbaba ha jirto balse aynu markan kursi dahabi ah halka sare u saarno wiilka yar ee dadaalka saaxiibka u ah isla markaana ka soo ifay mid ka mid ah guryaha Garbaharre أنا وحكسو برتوش يقال إن حقوقنا waxaan ka codsanay ummadda Soomaaliyeed taas anigoo saas daajo aan ku soo bartay dhibkaan iyo intaan daruuri aan ku soo bartay taasoo waliba iskuulka iyo xaafad u dhaxaysa bohol weyn oo keentay biyo xilliga roobka taasoo aanin juhud u gelin inaan waxbarashada ka haro aniga ahaan aad ayaan u jeclahay kuwa dadaalka badan kumana sii jirto marka ay guud ahaan qalbiyadeenu arkaan qof nolol adag ku jira oo ka heer wanaagsan dhalinyaro badan oo ku jira nolosha tan ugu wanaagsan kuna nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo magaalooyinka horumarsan hadaladiisa waxaa ka mid ahaa inay noloshu tahay mid adag marka laga cabir qaato qoyskiisa oo danyar ah oo aan waxba haysan habeenkiina uu ka soo kaco guriga isagoo aan ogeyn sida ay maalintiisu noqon doonto waxaa dheeraad u ahaa in maalin walba uu ku dadaali jiray sidii uu ariga ay cid u leedahay uu u daaqsan geelin lahaa mushkiladda maalin walba xalka uga baahneedna waxay ahayd halkii loo mari lahaa goobta daaqa leh sabab la xiriirta togaha dhaadheer ee goobta ay degan yihiin oo magaalada ka fog iyo biyaha ay soo rogaan oo hareeraha gurigiisa ka dhiga goob ay biyuhu aad u fadhiistaan mushkiladda ayaana ah sidee ayuu biyaha kaga tallaabi karaa ku aadi karaa gurigiisa mar kalena waa sidee isaga iyo arigiisa ay uga badbaadi karaan in biyaha ay ku dhibaatoodaan 1 kiiloomitir oo u dhaxaysa iskuulka iyo xaafadda aan deganay ama aan ku noolay waalidiintay taasoo waliba iskuulka iyo xaafad u dhaxaysa bohol weyn oo keentay biyo xilliga roobka taasoo aanin juhud u gelin inaan waxbarashada ka haro mar walba waxaan isku dayay inaan ka gudbo bohosh taasoo anigana hore juhudkaas u bixinay inaan wax barto oo heerkan jaamacad hadda gaaro
taasoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan haddana heerkan soo gaaro oon ka midna 100 qof oo waraysa Soomaali in badan qatarta sida oo kale boosh aniga waxaan iskanahay oo nin yar gaaban oo boosh biyo aad bay dheer boosh biyo aad bay banday atan boosh malahan hoogaa yar bunto biyo fiican ka gudbi kadmi lahan haddana boosh dhiiqo badan aniga haddana kobahayga dhiiqadan yaan isku kala aadi jiray taas oo si aan wax barto aan xilligan aan soo gaaray inaan isku kala qalin jiba haddana dhibkaas ayaan ku soo majiray xaafadan kobo buud haddaan soo herto kobahii togi oo biyo wadaan la imaan biyo haddii ka gudbays dhiiqo iyo khatar iyo waxaan uniformka hoogaa yar dhiiqan gaaro taas ka mid noqotay inaan heerkan ka soo gaaro haddana dhibkaas aan soo marjay sheekadiisa waxaa ku jirta in habeenkii uusan waxba aqrin karin marmarka qaar sabab la xiriirta korontada ama leer la'aan darteeda maadaama galabka uu aqrin lahaa uu ku soo daahayo qabashada shaqadiisa maalinlaha ah ee ari raacidda iyo inay macquul tahay inuu joojiyo waxbarashadiisa haddii uusan garab weyn helin maadaama qoyskiisa ay adag tahay inay jaamacadda la tacaalaan deegaankiisana aysan jaamacaddaba ku oolin kaamkaan jooga baabuur ay raacay laakiin aniga ma awoodin inaan ka raaco baabuur sidaas oo daadada macallimiinta waxay dhihi jireen maxaa u soo daadan anigana waxaan ku xaafadda la iskuulka waxaan ku aajiray lugteed taasoo aan juhdi gelin si aan waxa u barto haddana anigana gelinkii hore saas baa taas aday u dhaay gelinkii dambena haddii xaafadda imaado waxaan raacaa arigii oo ka horbaa si aan usoo wareejiyo kadib markaan soo laabto xaafadii inaan haddana casharkay waraajeystaan rabaa markaan soo laabtana ma jirto meel aan ku akhrista casharka waxaan rabaa in sidaan isa ka fiican dowladda waxay qobato oo aan horey waxbarashada usii wato aniga waxaan ugu dambeyn dareenkooda ay cabireen waalidka dhal wiilkan waxaana ay qireen in dadaalka wiilkooda uu lagu kabay ducadooda ay soo daahirtay yeelkeedee miyaysan ahayn in muuqaalkan aad sheergarayso aad gaarsiiso qof walba oo wiilkan caawinaad u fidin kara laagna saar muuqaalkan si aad inoogu dhiirigeliso in warbixinada noocaani oo kale ah aan soo badino magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafiinho aad iyo aad ugu mahadsan tahay la socodkaaga mar walba